waxaa maanta si weyn loogu xusay degmada Luqaya ee gobolka Awdal xuska 18 May munaasabada afrisidu gurida ka soo wareegtay markii ay Jamhuuriyadda Soomaaliya la soo noqotay xornimadeeda bulshooyinka ku dhaqan degmada Luqaya oo iskugu jira oqaal dhalinyaro iyo haween ayaa ku dabaaldegay barxadda weyn ee isku soo baxa degmada Luqaya munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen maamulka dawladda hoose gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo cuqaasha deegaanka qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda ayaa waxa hadalka iska daba qaatay oo halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwaneed ee ku sugnay madashaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dikadii noo bilowda Allah ka dhigo dikadii oo aan ahayn dhagax dhigo waayo dhagaxyo hore yaalee dhagaxii oo la bilaabayo tuu inooga dhigta Allah ka dhigo inana kuwii garta ee waxa loo qabanayo garta ilaahay hay naga dhigo kuwii hadii la bedeleeyay ka qayb qaata horumarkaana Allah hay naga dhigo maalinta qarannimada kuwii jeclaadana Allah hay naga dhigo ciiday naga maray naga leh aad iyo aad baad faraxsantihiin maanta hadda tay reer Luqaya on sugayno balaqaadyada waaweyn ee isbedel doonka ay ku dhawaaqeen insha Allah Luqaya waa ka kow dhawaana waa loo hirgelin doonaa wixii ay qalbiga ku hayeen sanadkiisana insha Allah waxaan inagu ballan qaadaynaa inagoo faraxsan inaan Soomaaliland ba xafladda sanadka ku xigta insha Allah waan ka dhargin doono khayraadka jiifa badda cas إلى Somaliland galbeedkeega insha Allah bidnillahi kariim hadii cilmi la hawo jiray hadii cilmi lagu horan jiray maanta ay kala cadaatay Somaliland ka gees ilaa ka gees cid Somaliland u tumaysa iyo sida loo soo abaabulay iyo sida loo soo agaasimay insha ka garataa insha dibtay ku dhacsa ayaan leenahay waxa weeye ninkii wax kala wada isaga way goleen laakiin Somaliland midnimo Somaliland waa muqaddas Somaliland markay soo joogto waxa ka socota xoolaha fara badan oo la raali ka ahayn lagu dhintay waxa halka uga duceynaa in Ilaahay nabadgelyo ugu soo dabaaro inta baaqila inta kadib wada degmada joogo waxa ka jira abaaro ballaaran baa jira Ilaahay baan ka baryaynaa in Ilaahay abaarahaasi looga nasbeeyo gaar ahaan dawladda iyadoo ay laga gacan qabato wixii tamarteeda iyagoo madaxweynaha ku bisriyahay haddana waa ku soo cabanayna in Ilaahay maartay abaarahaasi ay wixii tamarayay loo soo gaaraan Ilaahay waan baryaynaa inta kadib Soomaaliland marka taariikhda u noqono saakaan xusayno waa maalintii ummadu israacday ee nabadeynta ee waxqabad loo dhaaqay ee leeyahay waxa wada qabsana magaca hay'adaha Soomaaliland la yiraahdo u bixino sidaa maanta ugu dabaaldegayna uguna mahadnaqaynaa waxaan leenahay cid kastoo ka soo qayb gashay meesh kastoo joogto degmada dhexdeeda aad iyo aad u salaamadii wax kasta oo horumar ah oo dawladda ka socda waa soo dhaweynayna waxaan leenahay ballanqaadada wixii horumar ah ay noo ballan qaaday madaxweynuhu ballanqaadada dhammaan inuu noo fuliyo waxa weeyaan waa ka rajaynaynaa insha Allah degmada Luqaya qaybaha kala duwan uu ka fulaayo ama uu ka ballan qaaday inuu insha Allah noo fuliyo waan rajaynaynaa Ilaahay ha la qabto waxa weeyaan waxa ka mid ahaa dikada waxa ka mid ahaa degmada Luqaya qaybaha ka maqan xidhan laga footay taasina uu ballan qaaday ballanqaadkaana uu fuliyaan ka rajaynaynaa insha Allah waxaan leenahay madaxweyne fuli Luqaya waxa weeyaan waxay ka mid ahaayeen isbedelka ka dhacay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ballanqaadadii iyo xukuumadda wadajir iyo waxqabadna insha Allah waxa weeyaan fooday nagu soo hayaan waxa weeyaan inaan aad u diyaar garowno oo soo dhaweyno madaxda qaranka iyo waxa weeyaan Soomaaliland nimadeedu ay qanjaay kursataa daaran Luqayadayna baahay dhammaan degmada Luqaya oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada gudoomiye ku-xigeenka dhammaan ciidamada qaranka iyo mas'uuliyiinta kalaba bulshada qaybaheeda kala duwan sida muuqata mugiya marka laga soo qayb galay saaka xafladan ay dhimayga qaranka maalintooda sida fiican u xuseeya waxaan leenahay ambalyo ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay hadalka soo xiray gudoomiye ku-xigeenka degmada Luqaya iyo gudoomiyaha degmada Luqaya
cabdilaahi cali oo nuur duxood waxaana hadalladoodii ka mid ahaa ومعرفة قرنمة الصومالية أيام ما تشوفنا هذا الكلام مهم ويقول يوم النارون حسن معرفة الصومالية قرنمة ولا صلاة بتسوي عارف كان الدبيس تاجي عارف كان محاكم على والله بعد ما دحبنا نديسه أي يقول وقنوي حسين حسين مانتا وينوقص وبحري كاس على كاس الورد النوين جواب كيهو أنا المحاكم على وحارب شيء لا يتقدم على قصرة أنا يدور شو الله إنه شيء أنا كما هذا علم سيد وناسن حفلة مع أبو حسين أبو سوق قشين أبو موسين معلن تقارن هذا سومالان يومين كذا تاسو أنا قبل بشوف سومالان ما أنت رفيق القرن من لو يعدو إلا يكون كل سومالان حفلة كذا عيا إنه نكمل النهاية وقيمتنا كقاعدنا واحد الله ما أنتم حيدنا بشوف هذا وغيار أنا سعودينا أما وركي قبائل وروهين أما بهتورو إيمان طونتا وعلى الغاية حكومة ما أنت شوفته معايدنا ركي الغور أي مقال الغايات معايدنا معلم عبد الله وحزب أنا ما طوطن هاي ومقال وهيك اللي كان عنتري واحد رجع ما أنت نوحان فلان إن مقال الغاية إنه قط مشروع أولوي حكومتنا ثلاثة حيسا أي وطن كفرنا يسوع إن مقال الغاية كفر يسوع محمد حوينا أنا قاعد أدعي سبتين إنه رجل الغاية وحنقد سيا دكتور جناسي أو عصرية أيام الغاية كده سينو دكتور أسوأ حنفلها إنه يتحين نصيب فأقوى إنه ما أنت محيد أنا تلك السومال لنا إنه داير محيد واحد دول إنه قبل هاي ما عنده حيمان يا إن لا يحتاج يبلغ هالك الرأي ماذا وحلا ينقر وراء الغيوم إنه مسؤول وإنه شقالها جهديك ثمان حكومة محيد أنا هوش هوس عطاء إنه نحملنا هرمار كاستول سمين يا وحليه هاي دلوقتي ليه هاي هرمار كاستول سمين يا عليه ليه هاي قال الغيا وحصل حاجة للدونا أنت هسه عقب أنت هسه جاري وصل حاجة للدونا أنت هسه شقالها إمام دونا وحلو بهاي إنه دبر هذا إنه ندوك سود وإنه نموتنا وتفرمان إنه أنت محاذير كده أنت دمان يسوع إنه عليه سعسين إنه حملنا له بهاي إنه ضد عسق ومصطفى حسين عبدي مصطفى قربو